kulanti wanaagsan daawadayaal culimo kala duwan oo uu ka mid yahay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa booqday xarunta barashada Quraanka Kariimka ah tafsiirka axaadiista luqadaha iyo dhaqanka suuban ee Burus oo ku taala xaafadda Bashakshahir ee magaalada Istanbul dadka Soomaaliyeed waxay caan ku yihiin inay nooleeyaan Quraanka Kariimka ah ubadkoodan ay baraan waxay culimadu si weyn u jeclaysteen qaabka ay ardaydu wax ugu bartaan halkan أهم شيء تجتهدوا في حفظ القرآن ويكون هذه رغبة منكم ليس ضغط من والديكم أن كلام الله عز وجل شيء عظيم لا يقاس بشيء من الدنيا والكيك ما فهمتين يا فهمي هو فهمتين خلاص مركز إن شاء الله تجتهدوا وتحفظوا بإذن الله قالوا فهمنا كلنا طيب إن شاء الله بارك الله فيكم xarunta Burus marka laga yimaado culumta ay barto waxa soo kacaya waxay door weyn ka qaadataa kulamada wacyigelinta iyo soo dhaweynta culimada Soomaaliyeed ee yimaada dalkan Turkiga sida uu sheegay maamulaha xaruntan Cabdiraxmaan Sheekh Cabdinuur culimada kala ah Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi Sheekh Maxamed Cabdikariim Sheekh Xasan Al-Waajidi iyo Sheekh Yuusuf Qublaan ayaa si wada jira uga hadlay bal waxay ku soo arkeen dugsiga Burus iyo qiimaha ardayda in la baro Quraanka Kariimka ah iyo dhaqanka suuban waxayna maamulkan xaruntan sidoo kale ku booriyeen inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعلكم إن شاء الله تعالى من حملة القرآن الكريم فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأسأل الله تعالى أنه يعني ترجعون إن شاء الله تعالى إلى أهليكم يعني وقد حفظتم القرآن وعرفتم السنة وعرفتم ما يتعلق بأمور دينكم وإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجزي الأساتذة خير الجزاء على هذا المركز وخيركم من تعلم القرآن وعلمه بارك الله فيكم. هيا ذيك الحديث واخر نساء علومه. هيا الحديث الأخير مريم. هيا قال marka markaaskan aad baan ugu faraxsanahay waxaanu aragnayna de waa fiidiyogu idinku duuban yahay ilmo yar yar oo ma sha Allah gabdhiyo wiilalba isugu jira quraanka la xifdisiinayo aadaabtii la xifdisiinayo xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam la xifdisiinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu noqdo namuudaj ama waxa lagu daydo tusaale lagu daydo oo maraakista noocan oo ay farabadato umadu ay ku badato ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah waalidiinta khaasatan hooyooyinka dadaalay ilmahooda halka keenay dibka u soo galay soo safray in ilaahay barakeeyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala niyada wanaagsan ay ilmahooda la rabaan ilaahay u gaarsiiyo saasaan ilaahay ka baryaynaa jalla jalaalu akhuuna Sheekh Cabdiraxmaan oo mudiirka markaska ah dadaalka uu wada iyo juhuudiisa iyo maaragtay fursad kasta uu ka faa'iideysanayo si uu markasku uu kobco oo u mira dhalo sagana Allah ka abaalmariyaan leenahay insha Allah taala ilaahay ha ku gacan galo ilaahay ha ku garab qabto ilaahay subhanahu wa ta'ala ha waafajiyo waxaan u soo jeedinaynaa waalidiinta iyo jaaliyada halkan joogto oo dhan iyo magaranaysa caamada muslimiinba inay markaskan ay caawiyaan oo ay gacan ka geystaan intaanu aragnay waa in lagu farxo weeye laakiin kuma filla inuu maaragtay uu waxaan doonaynaa maraakista waaweyn ee maaragtay yani maraafiq kala duwan leh in uu yeesho ayaan ilaahay ka rajaynaynaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin waafajiyo sida khayr ku jiro بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقيقة هذا المركز الرائع عندما رأيناه
سررنا بالنظر إلى أولاده وطلابه وإلى المعلمين، وحقيقة هذا يبعث في النفس السرور، فجدير بكل مسلم أن يكون على هذه الصفات. دخلنا إلى بعض الصفوف ما شاء الله يحفظون الأحاديث ويحفظون القرآن الكريم بالإشارة، وهذا حقيقة شيء طيب جدا جدا على الطفل، وهذا دليل على هم وهمة، هم عند الأساتذة وهم عند أولياء الأمور يعلمون الأولاد حتى يكون عندهم الهمة لحفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتزينوا بالأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان ذو خلق عظيم، وأنه كان قرآنا يمشي ويدب على الأرض. فحقيقة هذه يعني ميزة في هذا المركز، مركز بروز الذي يترأسه الشيخ عبد الرحمن عبد النور. حقيقة هذا شيء طيب عندما رأينا المركز والإخوة الأفاضل الذين قاموا به، ممكن هم يكونوا خلف الكواليس، لكن نسأل الله عز وجل أن يكرمهم فهو أعلم بهم. نسأل الله أن يوفق هذا المركز المبارك، وأن يعين إخواننا في كل مكان وأحبتنا وأولياء الأمور أن يجتهدوا على قيام هذا المركز، وأن يدعموه في المادة، وأن يدعموه في الروحانيات، وأن يدعموه في الدعاء، وخير ما يفعلون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الغراء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جيك ما يبروقنا إلهي فضل شيء سبحانه وتعالى مركز بروز runtii waxyaabo badan oo mufaaja'a ah oo runtii dadaal juhdo dhinaca gabdho yar yar hoob leera hoob awlaadooyin leera fusuul oo shal duum macnaha madrasada ma ka bilaawna koot madoona galni meelo oo gabdho khaas oo ka baradaan dadka gabdhooyin oo ka baradayaan runtii eedan cajibiyan qaabka iyo barashadii iyo dadaalsho aan dareen haddana ma galnay gabdho yar yar oo axaadiistii يعني فسرات كدرايان يعني مدي حضرايان حديث كي شيغيان علامه ميك درايان غنيال اشاريان iyo meel raayis muttafaqun alayhi wala culimada eedan ku yaayo kuma haytii يعني حديثك مدي dhamayaan muttafaqun alayhi ya raay macnaha waa iska waafaqsan sadaraadii marka runtii wal oo cajiibe ولادن تلا تربيه qaabkaas lan tarbiyay la jeelaysi ya runtii nin ku muuqato markaska buruuz كذلك ويلشنا قلشوها باغني ما يكلا فرصة هاي كنتي نهر وذي شيخنا شيخ عبد الرشيد الشيخ الصوفي كذلك شيخ اللمات السنة شيخ دكتور محمد عبد الكريم وشيخ السودان السنة علماء أنجوين كمتهاي قراء كمتهاي حصل باقنا مركا مي مركا كبر رجال برشيد الصومالية مير بير روغان جميعا مراكزتهم أوكلا تمير كستك فافن هي إذن كباهي علماء أما دكسية قرآنك أما معلمين قرآنك مركز معلنك والبرشة الدين إلهي كورن شيء وميجيليا مراكز قرآنك تفافا حافظ كستو مركز الكفر حافظ كستميل رايس إنه جباهس لكتير أو ميل رايس باور لن رهاو مثل بس لن رهاو مثل أولادي لن أبسط لن مرجو ونجي إن بهانة ميل إن كدو الباب هو بكبه دكسية قرآنك وسهلو ما بدن تاني كجرته أسرة كست أمنتين كيرته لما قف أولادكم من القرآن كحفظ سنتها قبان أما تنكرته هو كل شيء حفاظ وضع نقدان أقل القليل لما كم من القرآن كلا حفظيا بنينا وبنات ولينا قدام به صدر هذه مرك إن شاء الله تعالى ما نفتين كبوري أنتي لدعمية لنكالمية لقرب سرم ليرجلي قفكوا بدال ما ينبهني ليرجلنا ينبهني وقدام بينتي عبد الرحمن الشيخ عبد النور oo ah maamulaha xarunta barashada quraanka kariimka ah tafsiirka axaadiista luqadaha iyo dhaqanka suuban ee Buruus oo la furay dabayaaqadii sanadii 2019 ayaa madashan ka hadlay xaqiiqatan caawa ma ahan waxaan ku cabiri karnaa farxadena kalimaad iyo erayo aan soo koobi karno inay halkan ugu soo booqdeen mashaayiikhdii quraa'dii caalamka ee laga garanayay dhamaantood inay soo booqdaan caawa halkan inagu yimaadeen inala joogaan waa xaqiiqatan aad loogu farxo ay kamid yihiin mashaayikhda garanaysan sheekhana الوالد الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي الصوفي sidoo kale to sheekh al-qari ايضا sheekh يوسف عطله قبلان من الاردن sidoo kale sheekhana sheekh حسن الواجدي sidoo kale waxaan la jooga sheekhena qaariga asagana sheekh محمد عبد الكريم oo min السودان
xaqiiqatan waa wax qalbigu aad ugu farxayo niyaduna ku farxayso fusuushana way galeen culimadu way soo wada arkeen soo wada salaameen waxay ku farxaan ay maaratay qalbigoodu ku qaboobo kuna inshiraaxo bay ku soo arkeen caruurtii wax baranaysaa waxayna ku soo aadeen falilaahi alxamdu xilligii dawaamka ama xilligii xiisaduhu socdeen bay ku soo aadeen sidaa darteed ilaahi subxana wa tacaala mahad iska leh inay isugu soo aadaan ilmihii xiisadii ku jira ardaydii qur-aanka socota macallimiintii joogta iyo iyagoo markaska yimidba intaasba farxad weyn bay inoo tahay haddii aan guda galo su-aasha hadda aad weydiisay oo ahayd barnaamijka qaabka u soconayo madrasada su-aasha badan noqonaysa oo online-ka ah way jirtaa laftarkeeda qaybta online-ka wuu jiraa isla markaska un waaye wuxuu leeyahay qaybo online ah ardaydiisu ilaa 40 dhowr bay maraysaa hadda inta online-ka banaanka jirta shuruuda adag sida darteed bay ardaydu hadda tiradooda aan badanaa aysan u badnayn بإذن الله تعالى جودها أرضية دقتنا واسيد وكلاته وقيبا وقبل يويل سوجرة فصوشة كورة ويلش عليكتا فصوشة حسنا قبلها عليكتا وحرجينا يا هل كان أنك فايدة سنة مشايخ علماء إلى جوكتا أنفرين باقة أدريا لمان أمد الصومالية عالم كمل كستي جوجان جارهان غير اسطنبول حافظ عند جنة ولي بشك شهير وحليها ولا ليال ملك استاجوكتان كلامك إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إلهي كوريلتان كيسو وحكو جرت الليبان تنا دويتنا آخربا waalidka boqolkiiba boqol inta badan waxa way hadda culimadu ka hadlayeen maanta jalsadan fadhinay waxa la yiraahdaa badanaa ilmuhu asagoo daalan oo iskuulka ka yimid baa loo soo diraa waqtigiisa qiimaha badnaa wuxuu ku qaataa iskuulada caadiga oo quraan kuma qaato sadarteed ilmuhu in waqti u helo quraanka tafarruq u yeesho waqtiyo yar oo muayana xataa di iskuulka sanad ama bil ama 6 bil xataa uu inta ka daaho oo marka quraanka xoog saaro ay lafkeed wax weyn maaha waxa way waxba kama ay tagin sidoo kale xataa hadii oo asagoo iskuulkiisa dhiganayo waqtigii juhdigii la gelin lahaa si fiican loo geliyo xaqiiqatan meel fiican buu ilmaha ka gaaraya laakiin juhdigii ilmaha hadii laga yareeyo waalidiinta khaasatan ilaa imtixaan buu leeyahay ma iskuul buu leeyahay ha laga reebo ma yeeli karo ilmuhu xilliga uu xambaari karo waa maaratay waa xilliga uu daadiisa wali yar tahay uusan maaratay sinul muraahaqa intuu gaarin waay waxa la yaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro culimadiina soo booqatay وان كفر حسناها مر لبعض مر سدحات وان جعلنا مرب ان نصب بغضان بروزنا ومأوى للعلماء والشيوخ والقراء والطلبة الكرام وملئ وتهي هوي علماء مشايخ ذا ملك استمادا اسطنبول شيخ مصومرو اما نين قاري اما صومرو الا وانه صومرا مركز كبروز باذن الله تعالى وصومرا عكتن وصومريا sidaas ayaan jecelnahay wax kalena ma aha waxaan rabnaa inay maaratay qalbigoodan ku farxo ducadoodana ay naasiibto sidaas aan ducadooda ku helno ilmahana ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtooda ku sharxo ducadooda ay u duceynayaan culimada waxaan ku gabagabeynayaa walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ummadda dhan u saaro waalidiinta khaasatan waxaan leeyahay walaalayaal khayr Allah idin noo duceeya ducada waa muhiim macallimiinta markaska wada ee u dadaalaya uu kamid yahay macallin Kayse macallin Maxamed macallin Xuseen iyo macallin Faatima iyo macallin Idriis intaba macallimiinta markaska u taagan ayna wax dhigaan ayaguna macallimiinta meesha joogtay kamid tahay juhdigaasi dadaalka ay bixinayaan xaqiiqatan waxay ku bixinayaan waa ilmihii ubadkiini hada adigu aad dhalina walaalka ama walaasha Soomaaliyeed baa dhashay marka inaan quraanka Allah subhanahu wa ta'ala kor yeelno waxay noo xoojinaysaa inaan midnimadeena iyo awoodeena islaamnimo iyo dadnimadeena dib u soo ceshano bay naga kaalmeynaysaa inaan kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqono waxaan leeyahay walaalayaal khayr Allah siiyo meel kasta joogtaan ducadiina waan u baahannahay noona soo duceeyo mar walba tawfiiqda Allah noo waafajiyo markaskana Allah barakeeyo من قرآن كي دينتي إلهي لغو برتو أو دعوة إلهي لغا فديانا الله كدقو إيه مراكزتك الردن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان قاركا هو إنو كو إيغيني بوقشة علماء كلا دوان أي كو تاقين حرونتا براشة قرآن كريم كا تفسير كأحاديث تلوقدا يرغن كسوبان إبروس أو كو تعالى حافظة بشك شهير مغالة إسطنبول intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkan waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Daruusha tan iyo kulantii dambe saaxiibayaal amaana Allah